عليه وان فوكسني اللي لو يلي يلا يلا وان فوكسني وابداني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول الملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم. dhalinyaro waxaa jirta weli weydiimihii ayaan ku jirnaa. weydiintani waxa weeyaan weydiimaha weli way socdeen. weydiintani waxay ahayd waxay ku saabsan tahay ambiyadii Soomaaliya soo joogay ama Soomaaliya ilaahay ka dhex dooray ama yimid ama joogay ama yimid. raadadku way fara badan yihiin. marka أولاً أنت magacaabistii wixii aan gelin buurta daalo ina geeyo. buurta daalo markaa tagtid waxaa jira sanadkiiba hal mar inay yimaadaan shimbiraha adduunka oo idil. waa sanadkii oo idil hal mar bay yimaadaan, deedna way baxaan. shimbiraha adduunka oo nooc walba adduunka meel kastoo adduunka ayay ka kala yimaadaan. maxaa iskugu keenay? ebedkaa miyaad isweydiisay halkaasi maxaa shimbirihii adduunka oo idil iskugu keenay oo sanadkiiba mar qura ilaahay maaragtay iskugu keenay meeshaas, deedna ay ku kala tagaan? muddada ugu faraha badan ay joogaan waa bil. markay ugu fara badan waa qaaraa joogo 3 cisho, qaar 7 cisho, qaar 2 usbuuc, qaar sibay ku joogaan, qaar 3 usbuuc. adugu waa bil inta ugu badan ay joogaan ay meeshaa fadhiyaan. shimbirihii adduunka oo idil ayaa halkaa iskugu yimaada. waa daalo mucjisooyinka dalka yaala ayay ka mid tahay ee aanan lagu sheegin oo manaahiijtaadana lagu soo darin. laguma soo daro manaahiijta dugsiyada, laguma soo qoro, walaa jaamacadna laguma qoro. waayo isticmaalkii baa weli maskaxdu ay naga haystaa. waxayni dhan buu doonayaa inuu masaxo, waxayni buu doonayaa inuu baabi'iyo. ayaga unbaa isfaanaya, ayaga unbaa maaragtay wax walba isku sheega oo wanaaga. annaga waxay naga dhigeen waxaana jirin. waa jirnaa, waana ka qiimo badannahay. innaga aad baan uga qiimo ballaadhannahay. maankaaga geli shimbiraha adduunka. halkaasi waxaa la sheegaa ama taariikhyahanada reer ceelgaabo. anigu waxbaa macallin baa mar ka soo noqday, marar kalena siyaalo kale ayaan ku tegey. waxaa jirta odayaal halkaas aan kula kulmay. waxay ii sheegeen dadka ma rumaysanayaan haddaan nidhaahno shimbirkii hudhudkii nebi suleymaan calayhi salaam baa halkaa ku aasan. haddaan nidhaahno ma rumaysanayaan. way adag tahay. waa dhab way adag tahay. maxaa lagu caddaynaya inuu hudhudkii halkaa ku aasan yahay? waxa weeyaan way adag tahay si dadka caadiga ah loogu macneeyo. laakiin qof scholar ah ee wax soo bartay ee wax soo baaray, haddii la yidhaahdo shimbirahan sanadkii maxaa halkan iskugu keenay mar oo inta kaleo dhan maxay u joogi waayeen ama ay u tegi waayeen? oo shimbirihii adduunka oo idil oo maca Siberia ku jirta qaar baa ka yimaada halkan yimaada. waa su-aal meesha ku jirta inaad isweydiisid. maxay buuraha kale u tegi waayeen? maxay meelaha kale u tegi waayeen oo halkan un iskugu keenay? odayaasha hadalkooda oday ka mid a ee aada u macquul ahaa ee yidhi way adag tahay inay rumaystaan dadka haddaan idhaan halkan raadadkii nabi suleymaan calayhi salaam baa yaalla. waa run, way adag tahay. laakiin iminka waa xilligeedii ee adiga lagaa doonaya inaad timaadid adigoo archaeologist ah, adigoo anthropologist ah, adigoo ethnologist iyo philologist ah in halkan loogu timaado. waa doonaynaa. waa xilligaadi, waa xilligii dhallinyarada, waa xilligii aqoonta. waa su-aal bay ahayd. su-aasha nebi suleymaan calayhi salaam ayay ku saabsanayd. weliba su-aasha waxay kusii saabsanayd, inkastoo casharada dambe ay ku jiraan aan u imaan doonno, dhulkani loo yaqiino Berber
dhulka berbera loo yaqiinay hadda berberada waa dhulka Somaliland ilaa Cergaabo waa berber unbuu ahaa gaalada wax kale uma ahayn Nabi Suleymaan calayhi salaam intaynan gelin oo casharada dambe oo inoogu jiro aan imaan doonno anagoo maca caddayntii soo dhigi doonno iminka bal horta maankaaga ku hayo shimbirahan sanadkiiba inay mar qura yimaadaan sababta ay u yimaadaanna waa taa way adag tahay inta badan inay qaataan way adag tahay inta badan inay rumaystaan waan ogahay aad baan ugu dheregsanahay aad baan u garanayaa alleh waan fogsanay elleloy heliya la yeelo way fogsanay waa badhaadhay